Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada kooraskeenii farsamada baabuurta. Waxaan ku guda jirnay cutubkeenii afaraad. Insha Allah waxaan bilaabanaa casharkiisii shanaad. Casharkii shanaad waxaa uga hadli doonaa tuulka gaariga. Waxaan soo jeedinayaa anigoo ah Maxamed Xirsi Faarax. Wixii jawaab celin waxaan ugu soo celin kartaan emailka shaashada inay ka muuqda. Kooraskan waxaa kala socoteen mareegtada Somalism Online Academy. Tuulka gaariga. Horta marka hore aan isla faahno waa maxay tuulka gaariga. Tuulku waa agab lagu furfuro laguna xirxiro baabuurta. Waxa uu ka kooban yahay agab aad u fara badan, laakiin waxaan ka soo qaadan doonaa inta ugu muhiimsan. Waxaa jira wax la yiraahdo box ka tuulka jira. Sawirka hoose waxa uu inoo muujinayaa box ay ku jiraan inta badan tuulka loo isticmaalo furfuridda baabuurka. Si xagga uga jeedaan baanadihii oo dhan, baanadahan xagga safan oo kale hadda ilka weynayaal baa la yiraahdaa, kuwana ilka yaryaal. Marka box ka tuulka la yiraahdaa. Sidoo kale jira wax la yiraahdo saacadda dabka. Saacadda dabka waa agab tijaabo oo loo isticmaalo in lagu cabiro labo ama in ka badan oo xaddi koronto si awood qulqulka iyo caabiska korontada loo ogaado. Waxa jirta iyadana sidoo kale oo ka mid ah tuulka gaariga biso dhejis. Waa agab loo isticmaalo in la iskula qabto laba walax oo la isku dhejinayo si ay isku qabsadaan ama isku xirmaan. Biso fiiq baa jirta iyadana. Waxaa loo isticmaalaa in lagu fiiqo fiilooyinka baa iyadana loo isticmaalaa. Waxaa jirta baanad filter iyadana loo isticmaalo in lagu furo filterka olyada. Waxaa jirta makaaniko ama jaraaley. Iyada waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro baanad box to kale in lagu xiro loo isticmaalaa iyo dheereysooyinka. Waxaa lagu xiraa baanadaha marka la furayo bool meel hul ah ku jira, yani bool meel hoose ku jira oo kale. Marka rabtid inaad furtid tanba boolka xagana looga xiraa baanada. Kadib iyadu waa gacantii oo kale waa tii yani wareejinaysay baanadii wax furaysay. Marka baanadii wax furaysa tan lagu xirayaa kadib tan baa la wareejinaya. Magarat tan waxay wareegaysaa xagal wax ku wareegaysaa 360 yani saan iskaga soo wareegaysaa. Biso ama kelbad waxaa loo isticmaalaa qabasho iyo in lagu kala gooyo fiilooyinka. Xagana waa lagu qabsada afka hore, xagana waa lagu kala jari karaa. Fiilooyinka lagu kala jaro. Biso katar baa jirta. Waxaa loo isticmaalaa in lagu kala jaro fiilooyinka iyadana loo isticmaalaa ama hargaha. Afka yarka sakiinta camal oo kala wala. Waxaa jirta baanad steel. Baanadan kale waxa la yiraahdaa steel. Nambaro kala duwan bay leedahay. Habda boolka nambarkiisa marka xagan ilka yar ay ka tahay, xagana ilka yani fasax bay ka tahay. Waxaa jirta baanad fasax. Baanad fasax waxa weeye baanada labada afba ka furan ayaa la yiraahdaa fasax. Waxaa lagu furfuraa boolasha waxayna leedahay tirooyin iyaduna cabir kala duwan bay leedahay. 14, 15, 16, 17 waxaas leedahay cabiradaas leedahay kala duwan. Tan waxaa la yiraahdaa baanad L. Tan ayadana waxaa la yiraahdaa baanad T. Waxay ka mid tahay qalabka aan ka hadlaynay ee tuulka gaariga. Ayada lafteeda nambaray kala leedahay. Waxaa lagu furfuraa boolasha waxayna leedahay nambaro iyo tirooyin kala duwan. Tan waa arkaysan ayaduna waa baanad black. Waxaa loo isticmaalaa in lagu furfuro laguna xirxiro balaagyada. Balaagyada waa garanaysaan waa kuwii ka qayb qaadanayay qaraxa matoorka ka dhex dhacay ee qarxinayay bastonka dushiisa shidaalka iyo hawada isku jira. Ay isticmaalaan matoorada petroolka sida aan casharadeenna hore ku soo sheegay. Tan waxaa la yiraahdaa baanad box ilka weyna ah. Sida xagga uga jeedaan tan waxaa la yiraahdaa baanad box ilka weyna ah. Tan waa 21. Tan marka iyadu waxay noqon kartaa tusaale ahaan xaggan gadaal meesha nambarka ugu qoran yahay oo kale. Waxa ugu xiranaysaa Soomaa dheeraysadii oo kale ugu xiranaysaa ama jaraaleydi oo kale xagga gelis.
waxaa loo isticmaalaa in tan waa baanad box ilka yara ah, ilkaheedan yarka ujeedaan, baanad box ilka yara ah. Gadaal adigu waxaa ugu xirmanaya dheerasooyinkii ama jaraacaaleydii oo kale baa ugu xirmanaysa, kadib baa iyadoo wax ku xiran yihiin baa boolka la gelinaya laguna furay. Waxaa loo isticmaalaa in boolasha lagu furfuro laguna xirxiro. Griigi waa garanaysaan, waa qalabka wuxuu ka mid yahay qalabka qaadista baabuurta ka mid yahay. Waxaa lagu qaadaa gaariga marka la sameynayo ama laga bedelayo taayirada. Baanad kiyawe waa jirta. Waxaa loo isticmaalaa furidda iyo qabsashada iyada oo la ekeysiinayo hadda meesha lagu xirayo. Xaggana laga soo socodsiinayo hadda size-ka meesha la ekeysiinayo, cabirka meesha. Gunaanad baanaduhu waa qayb ka mid ah toolka baabuurka, waxayna leeyihiin noocyo kala duwan sida baanad box, baanad faseex, baanad filter, baanad black, iyo baanado kale iyo kuwo kale. Baanad elle, iskorobaale, biinso katar, biinso qab, kaliibar iyo kaliibar fermo. Waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin baanad ellooyinka ka mid yihiin biinsada iyo biinso katar iyo biinso qab iyo shilbaakin sidoo kale waxaa ka mid ah shilbaakinka serializazione ama shilbaakin waa qalabka gaariga ka ilaaliya neefsiga, isliigidda ama wax daadinta sida olyada iyo biyaha. Shilbaakin sidoo kale waxaa loogu yeeri karaa serializazione baa loogu yeeri karaa. Waxaa jira baakin garazione aan kusoo dhiganay, baakinka u dhexeeya testatada iyo balookada wuxuu ka mid yahay shilbaakinku ka mid yahay. Waxaana qalabkan ka mid ah lamdadaha ka mid ah, baraarugaha ka mid ah, saliid-dugayaasha ka mid ah. Lamdaduhu waxay galaan kariinka matoorka galaan, baakinaduna waxay kala dhex galaan meelaha ay isku xirmada sida testatada. Anaga soo sheegnay baakin ama baakin garazione anaga soo sheegnay sida testatada iyo balookada ama sida takoobada iyo balookada. Sida takoobada iyo balookadana waxay leedahay baakin bay leedahay. Agabka qaadista baabuurka waxaa ka mid ah griiga iyo shambaladaha ka mid ah. Shambaladuhu waa kuwa gaariga marka matoorka matoorka la rabo in lagu qaado kale, tusaale ahaan matoorka gaariga in laga saaro kale marka la rabo. Xargahaas inta lagu xirxiro xargo iyo waxbaa lagu xirxiraya qalabkaas marka qaadida baa shambalada la dhahaa. Agabka qaadashada baabuurka waxaa ka mid ah moorsada ka mid ah, baanad bustonka ka mid ah, waxaa ka mid ah baanad waalka ka mid ah iyo baanad riimanka waa garananaa. Riimanku waa kuwii ku jiray bustonka oo 3 xabo ah, riinka olyada iyo riinka dabka kuwaas aha. Shil motor waxaa la isku yiraahdaa galaasyada, bustomada, baraarugaha, biyeelaha, baakinka, riimanka, lamdadaha iyo saliid-dugaha qaybaha hoose ee matoorka. Qaybaha hoose matoorka waxaan oo dhan la isku dardaray waxa la isku yiraahdaa shil motor. Dhammaad casharkeena maanta intaas ku egyahay. Insha Allah waxaan oo balana casharkan iyo casharka xiga. Aad baa mahadsantihiin dhammaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.